inuu guurku ku adkaado oo gabdhihii la beeciyo oo lacag qaali iyo dollar iyo dahab hiqleys ka siiyo oo maharkii qaali uu noqdo leeyahay gabadha miisaan saar intaasoo dahaba keen koraan uga baxa ma dhahayo marka ya dhalinyarada mar aan dheereen usbuuc laga joogin wiil dhalinyaro ah ayaa masjidka igu yimid anoo inta kitaab kala baxsado aqri maagaa sheekh mas'alaan kugu sareysaa haye gaarkayga soo dhawo igu shub haddii aan fahmaayo wuxuu gabaraa lii diido yaa ka waran sheekhe ani qaali ma aha helwaayo ani qaali mii mugti see lagugu diidaa waa isjecelna wuu yidhi sheekh haye haddaa isjeceshiin ma isguursatiino odagaa wuxuu yidhi ma ku sii hayo gabadheeda xabad ma haysato waryaa shid calayhi yaa tag ani waxaan sameeyaan garan waayo ya waa u soo dhawaado waxaan idhi maxaa samayn rabtaa marka waxaan rabaa inaan ogaado mogta sheekh waxaan siri yidhi sheekhaan xoogaa meelahaasoo ka wacdaa aragtee inaan masaafo ku taagaan rabo yidhi walaa ayada khudbasira kow sheekh ma bannaan tahay anoo tii la yaabanoo howl kale u geliyaba mogta ya andika u keena war ninka saasa dhallinyarada war u keena gabadhii uu rabaa isaga waa rabtaa meher uu ogol yahay inuu aroos uu ogol yahay xataa inuu guri u dhigto ogol yahay ciddiisii asagii waxaa lagu haystaa gabadheena maxaa tihiin adig maxaa haystin adig shiidaa tihiin yaa marka iskale dembigaas marka maxaa faafay ya dhalinyarada fiiri kulligood warayso ma awoodnay ku leen annaga guur way awoodeen laakiin guurka hadda jiraysa awoodin ha guurka maxaa lagu guursan jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabaraa u timid xadiiskii bukhaariga dhirir badan rasuulka ilaahay wahabtu nafsii laka tiri imra'atun in wahabat nafsaha linnabiy in araada an-nabiy an yastankihaha wa sukahibi wa banaanad nabigeena inta kale uma banaan hadduu ku yiraahdo waa ku aqbala saas uu ku qabaaba nabigu waa fiiriyay markii hore horta soo dul istaageeda hoos u jeestay markay tiri waa ku hibeeyay naftayda ayuu lugteeda ka bilaabay saas u fiiriyay ha markuu fiiriyay maqsuudkii waa ka haleelaba ilaan waa sharci moogta marka islaanta guursanayso iyo gabadhu markay nin guursanay in lees arko wixii wajiga iyo gacmaha iyo muuqa kora markaasuu nabiga madaxiisa soo raariciyay way qancin weysaale ilaan ishu moogta koo ayada macallime muxuu ka xishooday aad u xishood badnaa sallallahu alayhi wasallam dooqayga ma tihi dhalinyaro daadishay u yaqaanay waxaas afraad saac la daadiya ya gabdhiina saas u daadaya wiilash gabar haddaa tira walaal ilaahay dartiisa waa kula dhacay inaan guursadaan rabaa ma adiga dooqayga ma tihi iga wareeji asagina wuxuu leeyahay adiga dooqayga ma tihi saas sharciga ma qofka haddaa arto inuu ku rabo adiga ma aha alxamdulillah waa la khayra iska dhiniid u deji caqliga iyo cilmiga way wada socdaan haddii kale nafsi waay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa foorarsaday gabadhi mudday taagneed ale markay daashay aydan waxay dhigi kartaa rasuulka ilaahay ha dhacay baaritaankaas way xishooyay gabar dhalinyaro ah nin saxaabiyo inta u fadhiyay oo shilin aan haysan ay rasuulka ilaahay ku jeedaahe anima ka faa'iideysto doqon wax tarime moogta hadaa fursad heshay mid tuuga la yiri tuuga aajirta markaas uu yiri maya waa toobad keena intuu cabaar joogo wana iga ma dul tilaabsado anaha wana iga ma dul tilaabsado hadaa marmar fursad helo ya hadaa fursad khayr heshin fursad waa laga faa'iideystaa ninkan xabad ma haysto wuxuu rasuulka ilaahay wax dana kama liidmiya waa ku jeedaaye anigu nikaaxiyo yiri dhalinyaro waxa anigu laymi anigu nikaax nabigu ma dhin gabadhan guuri diyaar u tahay markasta ayda muta rasuulka day weysay sallallahu alayhi wasallam saxaabiga ana ma liito rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waa ku aqaanahay maxaa haysataa he abaaru aamusay hal go' oo duubsan yahay go'aana haystaa irkana iga dhaca raganimo rasuulku waa la dooday gabadha waa taagan tahay wuxuu yiri go' muxuu tara gabadha hadaa adiga ayada siidid aduu gurigaad fadhiisay waa qaawnaahe hadaa adigu haysatina meher heli mayso wax kala raadi isugu yiri waa baxay yeelo soo niman u tagay wax ma hayno xilliga faqriga saxaabada hore rasuulka ilaahay waa soo waay wuxuu yiri walaw khaataman hataa faraanti bira hataa keen faraantida waxa jira fidaa oo xogaa lacag yar jooga hataa keen waa tagay hataa faraanti waa waayo nabigu waa aamusay ila gabadhi meher rabtaa mugta sallallahu alayhi wasallam muddo dheer oo ninkiina oo leeyahay farta hoos ka qanay oo leeyahay tan haday ku dhaafto
gabadhiina waa taaganta allahu akbar dadkaasaana soo maray waxyaalaha diintu cajiib waa walaalayaal anas ibnu maalik waxbay kuu dhiibaane ayaa kitaab xadiisa akhrinaya xadiista nebigu akhrinaya mugdo dheer oo noolaa mugta asaga gabdho badan oo dhalaa la yidhi boqol ku dhow gabdhihiisa aad u badnaa markaasuu gabadhaan soo qaatay xadiiskeeda gabar ayaa nebiga nafteeda u hibeeyey waxay tiri rasuulka ilaahu nafteedaan kuu hibeeyey gabadhiisa intay ka fadhidaa xer badan oo rag iyo dumarna wuxuu akhraa gabar yaro inana maasha allah u dhalay qosolee la dhacday tir duf ku bax ma aqalla xayaa ah inkaaro kuu dhacda naagihii waa ceebaysa intay nebigu u timeelaya ninaan rabaa shaniga gabdhaha inamadaa moogta ba hal dharbaaxyaa inta ku sii daayay oo qambalafa gabadhiisa inantaa la siiyey aabba waxaa ii dile wuxuu yidhi taasi kun adigaa waa ka khayr badan tahay gabadhaas aad ku qoslaysid oo ceebaysanaysid gabar saxaabiyada oo nebi maxamed nafteedii u hibaysay oo wejigiisa aragta waay kun adigaana waa kaa khayr badan tahay buy taas maad gaartaa buy ya arooska maanta loo mashxaladaa intaasoo bilyan oo doolar lagu bixinaa iyo boqolaal kun iyo arooskaas ka waran faraantii laysu la'yahay faraantii hal doolar jooga laysku la'yaa ka waran ha saxaabigii markuu asna gabadhi waa rabaa gabadhina ninka waa rabtaa waa la kala aamusay nebigu sala allahu alayh wasalam xikmaddiisa wuxuu yidhi war qur'aanka wax ma ka taqaan qur'aanka ma xifdisanta wax ma ka xifdisanta markaasuu yidhi haa suuratu baqara iyo kor aanba hadda ka wadaaho awalka dhan xooggiisa waa aqaan intaa taqaanoo qur'aanka inaa barto aan kugula nikaaxay yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ya gabadhaas ka waran arooska noocaasa iyo arooska maanta jira marka waxaan ku keenay waxa fitnadan dadku waxay arkaan waxaan muuqda laakiin odayaasha caqliga badan waxay dhahaan waxaas day wax ka sokeeya day horta maxaa sabab u ah horta dad waxaa jooga xataa akhyaaro oo gabadhii beriis siisa karo guri u dhiga karo ciddii la xidhiidhi karo oo laleeyahay raalli ahaada maxaa annaga alaab iyo beriis iyo muxuu nagu tara habartiyaa waxaas waagoor waa laga xishoo jiray sodog iyo sodoh gorgortamaa ka war nin odaya baadiinta ka yimid waxaa la yidhi adu musqulaha maxaa ku nacda magaalada aasur waxaan ku nacdo yidhi sodohdii aa dib ka geli war markaa ka soo baxday odaygii iyo sodohdii iyo ganaagtii wax dhan waa isla gelayaan magaalada dadkaas mugta waa kala xishoodaan hadda sodoh iyo sodog gabar ay dhaleen farjigooda ku tartamaayo oo ku gorgortamaayo waa dhibka wax dhallinyarada u keena maxaa marka la leeyahay qofkii waalidka war gabar kuuma aroosi kareen yahow magaaladaas iska marmar ilaahay ha naga badbaadiyo qoom haddii ay ku faafto zawaajku uu ka dhaco fidnadaa badanaysa waxaa marka asbaab kale u ah waxaan la fiirinaayo oo guryaha la geliyey oo taleefanada facebookyada twitterada iyo tiktoka dhaadin iyo waxaan youtubeyada waxaas qashinka alaflaamul khaliic oo dhan way fududeeyeen gaaladii maxay sameeyeen xisay ka dareen waa maqlayseen washington iyo new york iyo waa maqlayseen america iyo ingiriis oo dhan iyo xisadihii iskuullada mawaaddaa lagu soo daray xisada oo fisqiga macallin ay leedahay ka lacag badan macallimiinta markaasay islaam waxaa la sheegaya dad culamaa inta u tag soo wacdo tiri ilmihii waxay leeyihiin noogu celi xisadaan waa xisad zinaa saksiya waa fisqiga noogu celi hooyo markaasaa madaxii weynaada habarta ya annagana maxaa la yidhi baarlamaanka inta la keeno habaraa inta keentay tir ha la ansixiyo heerkaasa waaba soo dhiirata mogta asa odaygii dadku weynaa wuxuu leeyahay wax laga aamusi karo maaha marka hore xaa loo keena markii la keenaayo oo islaanu inay ku soo dhiirato intay soo qabato tiraa waxaan ha laga doodo hal maxaa laga doodaa haddaan meesha xoog jirin ya waxaa la yidhaha zina iyo liwaad iyo saxaaqaa jira